waa maxay shaqo la'aan? Maxaa keena shaqo la'aanta? Ma shaqo la'aan baa jirta waddankeena mise cid shaqaysataan la helin? Ma xirfad la'aan iyo farsamo la'aan baa jirta mise waxaan dhisnayn kaabayaasha dhaqaalaha si ay dhalinyaradu isugu halleeyaan oo u helaan shaqo ku filan? Waa su'aasha aan isku weydiin doono mawduuceena maanta oo ku saabsan shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed iyo xalkeeda. Ugu horreyn, shaqo la'aantu waa caqabad aad u weyn oo haysta dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaad ogaataan dhalinyarada waa udub-dhexaadka ummadda Soomaaliyeed oo waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 70 inay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed gabi ahaanteedba. Waxaan dul istaagi doonaa dhowr qodob oo ku saabsan mawduucaasi shaqo la'aanta. Ugu horreyn, waxaan isweydiin doonaa sababaha keena shaqo la'aanta, saameynta ay leedahay, iyo xalka kama dambaysta ah ee lagu daweyn karo shaqo la'aanta baahsan ee ragaadisay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Haddaynu ka horreyno qodobka koowaad, sababaha keena shaqo la'aanta, waxaa ugu horreeya tiro badan iyo fursado yar. Dhalinyaradii oo aad u fara badan iyo fursadihii oo aad u yar. Dhalinyaro badan ayaa sanad walba ka qalin jabiya jaamacadaha dalka, halka suuqa shaqadu uu yahay mid aad u yar oo aad u cidhiidhiya. Taasi oo keenaysa isku dheelitirnaan la'aan xagga shaqada ah. Qodobka labaad waxa weeye nidaamka waxbarasho oo aan la jaanqaadi karin shaqada suuqa taalla ee reality-ga xaqiiqada ah. Waxaan la barto ee manaahijta wadamada Afrikaanka, gaar ahaan Soomaaliya, lagu barto ma aha wax ka turjumaya shaqada suuqa dhabta ah taalla. Dadka lama baro xirfado ay ku shaqaystaan, hadday tahay xirfadaha gacanta lagu qabto iyo kuwa soft skills-ka la yidhaahdo. Qodobka saddexaad waxa weeye kalsooni darro siyaasadeed iyo dhaqaale oo jira. Oo dadka maalgashadayaasha ahi waxaan isku halayn karin dalka. Shirkadaha waaweyn ee shisheeye iskuma halayn karaan amniga dalka. Waxaa jira ganacsato maxalli ah oo dalka ku nool oo haysta lacago malaayiin dollar ka badan, laakiin hantidoodii ku aamini waaya dalka oo ku maalgeliyay wadamada dariska sida Kenya, Masar, Tanzania iyo wadamada kale ee Afrika. Sababtaasina ay tahay isku halayn la'aanta xasilloonida dalka, xasillooni la'aanta dalka ka jirta. Mar walbo xasillooni darro iyo amni darro ay dalka ka jirtana, waxaa yaraanaysa fursadaha maalgashiga, amba ha ka timaado dhanka dhaqaalayahanada iyo dadka milyaneerada ah iyo dadka lacag haysta ee gudaha jooga, ama shirkado shisheeye ah ka timaadeen. Qodobka kale ee saameynta ku yeesha shaqo la'aanta waxa weeye qabiil iyo ka jira goobaha shaqada. Shaqooyin badan laguma saleeyo karti iyo xirfad, balse waxaa lagu saleeyaa oo door weyn ka qaata qaraabakiil iyo qodobka koowaad ee ah sababaha keena shaqo la'aanta haddaan intaa kaga gudubno. Qodobka labaad waxa weeye saameyn maxay yeelan karta. Saameynta ay yeelan karta waxa ugu weyn 3 baan kula qaadaynaa: mid nafsiyeed ahaan ama shakhsi ahaan, iyo mid bulshada ah, iyo mid dalka ah. Haddaynu ka horreyno midda nafsiyeed ah, waxay keenaysaa niyad jab, rajo beel iyo walbahaar. oo qofka dhalinyarada ah markuu 25 sano amba 20 sano wax soo baranayay ee dhaqaale inta leegrikooda kaga baxay wixii uu soo baranayay iyo suuqii dhabta u biseelan waayaan, waxa ku dhacaysa wax la yiraahdo filan waa ay isqabad waa. Waxa badanaya stresska, waxa badanaya tuugaysiga, waxa badanaya tahriibka, waxa badanaya walbahaarka iyo camal la'aanta iyo wax kasta oo qoys iyo rajo beel keenay. Qodobka labaad waxa weeye amba dhanka labaad ee saameynta ku yeelanaya waxa weeye oo bulshada waxa aad u kordhaya hijrada amba tahriibka wax la yiraahdo, dagaalada, dambiyada yaryar. Tusaale, ninka dhalinyarada ah markuu shaqo waayo waxay ku kalifaysaa wax walba oo wax ku heli karo ama wax uu cuno ku heli karo inuu helo wadada doonaha u maro, xalaal haata ama xaraan ha aha. Qaar waxay bilaabayaan inay istaagaan dariiqada habeenkii oo isla bulshadoodii ay mobilada iyo hantida ka dhacaan iyagoo ka raadinaya waxay naftooda ku maareeyaan. Qaarkood waxay baranayaan balwadaha oo nolosha ay ka dhacayaan, qaar way tahriibayaan amba Ilaahay badbaadin ama baday ku leeyanayaan.
qodob saddexaad ama dhanka saddexaad ee saameynta ku leedahay waxa weeye dalka. Saameynta dalka ku leedahay waxa weeyaan horumar la'aan baahsan ma dhacaysa. Marka mixwarkii iyo dhexdhexaadkii bulshada iyo dhalinyarada ahaa ay bilaa shaqo noqdaan ee ama waddanka ka baxaan ama waddanka dhibaato iyo dagaalada galaan aba iyo waddankaba dhib ku noqdaan ama naftooda dhibaato ay ku noqdaan ee balwada bilaabaan ee dagaalo galaan ee dadka habeenkii dariiqada u istaagaan horumar la'aan baahsan ma dhacaysa. waxa kaloo saameyn dalka ugu yeelanaysa wax ka mid ah fursadaha maalgashidu aad u yaraada. haddaba kama dambaysti iyo qodobka ugu dambeeya xalka ah aanta waxbarashada iyo suuqa shaqada in la isku xiro oo la diyaariyo manhaj isku xiraya waxa suuqa yaala ee dhabta ah ee shaqada suuqa taalla iyo waxa ardaygu jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada ku baranayo. jaamacadaha waxbarashadu iyo goobaha waxbarashadu waa inay ardayda u diyaariyaan koorsooyin xirfado ah oo xirfado gacanta laga qabto iyo course soft skills labadaba inay ardayda baraan. qodobka labaad ee xalka lagu heli karo waxa weeye in dhiirigelin loo sameeyo dadka yar ee jaabka yar ganacsatada yaryar iyo qofka hal abuurka ah in fikradaha dhalinyaradu ay haystaan loo maalgeliyo oo wax yar loogu maalgeliyo oo la dhiirigeliyo oo dowladda iyo dadka lacagta haysta ay dhiirigeliyaan. qodobka saddexaad waxa weeyaan in dhalinyaradu bartaan xirfadaha casriga digitalka sida online freelancing, programming, digital marketing, designer iyo xirfadaha kale internetka taasi oo shaqo abuur fiican u sameynaysa. qodobka u dambeeyaan kusoo gabagabeynaya waxa weeye in ay dowladdu u diyaariso nidaam iyo kaabayaal dhaqaale iyo siyaasad isbedel oo wax ka bedelaysa dhaqaalaha iyo nolosha dhalinyarada. ugu dambeyntii shaqo la'aantu waa caqabad weyn oo caqabad ku ah dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhalinyarada. waa in loo diyaariyo dhalinyarada nidaam waxbarasho oo ku saleysan waxyaabaha suuqa hadhow kaga horeeya si ay dhalinyaradu isugu diyaariyaan inay hadhow toole shaqo aanay waayin haddii waxay soo bartay shaqo ku waayaan. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay quusiin haddii aad shaqo weydaan waxaad isku daydaan inaad wax abuurataan, inaad dhagaxa jabisaan, inaad fuundiga iyo kuuliga gashaan. haddii albaab kaa xidhmo albaab kale garaac, ilaahay isku xidh. dhammaantiin waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin. intaan mawduuc kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.